بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحديث الثاني، حديث اللباد من هذه الكتابة 40 كمدة أيان ميشان كقود قلينا. can cumar waxaa laga wariyey binu khadaab radiallaahu tacaalaa canhu, ilaahay raaliha kan ahaadee xaggiisee aydan mar labaade. qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu annagu juluusun aan fadhina cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, nabiga agtiisa aan fadhino. id waqtigaas waayahay daata yowmin maalin waqtigeed, annagoo nabiga agtiisa fadhina. id waqtigaas dalaca waxaa soo dhashay, waxaa noo yimid oo na soo daalacday calaynaa dushayada rajulun nin ayaa yimid. sifooyin ayuu sheegahayaa oo dhowra. ninkaasoo shadiidu bayaadisiyaabi, yacnii dharkiisa cadaantiisa aad ay u daran tahay. shadiidu sawaadishacari, tintiisa madowgiisana ayaduna ay aad u daran tahay. oo waxaa weeye yacnii qofku markuu meel fog ka yimaado, haddana safar uu ku yimaado, xoogaa waxaa laga dareemaa yacnii waxa weeye safarka dhibkiisii iyo safarkaas boorkiisii iyo caradii uu soo jafay. marka wuxuu cilaynayaa oo meesha ka saarayaa yacnii ninkaasi inuusan arrimahaas ku sugnayn. marka wuxuu leeyahay baynamaa waqti naxnu annagu juluusun aan fadhino cinda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama, nabiga agtiisa annagoo fadhina calayhi salaatu wasalaam. daata yowmin maalin waqtigeed, yacnii xilli ka mida xilliyada oo maalinta ka midahuu ahaa, siiba labada gelin mid ka mida ayuu ahaa. id waqtigaas dalaca waxaa soo dhashay calaynaa dushayada rajulun nin ayaa soo dhashay oo noo yimid. rajulkaasoo shadiidu bayaadisiyaabi, dharkiisa cadaantiisu aad ay u daran tahay. shadiidu sawaadishacari, tintiisa madowgiisuna ay aad u daran tahay. rajulkaasoo laa yuraa aan laga dareemayn calayhi dushiisa aasaru safari, safar raadkiisna aan laga dareemayn, oo wax safarihi uusan ka muuqan. walaa yacrifu uusan garanayn hu oo rajulkaas axadun axad uusan garanayn oo mina annaga naga mida. ninka markii la wada fiiriyey, yacnii waxaa weeye hal qof oo dadka ka mid a ma garanahaya markaas. xataa jalasa ilaa uu kala fariista ilaa nabiyi sala allahu calayhi wasalama, ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la fariista ninkaasi. faasnada rugbatayhi, jilbihiisa ayuu cuski siiyey, ilaa rugbatayhi, kuwa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu cuski siiyey. oo sidaa meesha ka horaysu inta soo fariistay ayuu jilbaha u saaray. wawadaca kaffayhi, kafkiisana wuu dejiyey, calaa faqadayhi, boodyaha nabiga korkooda ayuu ku dejiyey. halkaa kafka ee calaacasha meesheeda cada ayuu wuxuu ku dejiyey kafka nabiga calayhi salaatu wasalaam. waqaala wuxuu yidhi yaa muxammadow ayuu yidhi. wuxuu isticmaalay marka nidahaas ayuu isticmaalay, yaa muxammad. marka waxa weeye ninkaas dee waxa weeye asaga sifahaas uu u bannaan yahay, laakiin
rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye in dadka kale ay dhahaan waxaa weeye qaal uma aha, awlo uma aha dadka kale inay dhahaan, maxaa yeelay macallinka ayaa arrinkaas isticmaalahaya oo kaliya, waa macallinka nabiga calayhi salaatu wasalaam. wa qaala wuxuu yidhi yaa muxammed ayuu yidhi, muxammedow akhbirnii iiga waran oo ii sheeg canil islaami islaamnimada wax iiga sheeg. qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama al islaamu islaamnimadu an tashhada inaad qirtid weeye an laa ilaaha alle inuusan jirin ila allaahu alla mooye, ilaahay mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudaa inuusan jirin inaad qirtid weeye, wa anna muxammadan nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii inuu yahay, ergigii ilaahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ka wakiilka ahaa ee uu ummaddan muxamadiyada u soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yahay inaad qirtid ayaa islaamnimada ka mida. wa tuqiima salaata salaada inaad oogtid adigoo la imaanahaya arkaanuhaa wa shuruuduhaa wa khushuucuhaa khushuuceedii iyo shuruuddeedii iyo arkaanteedii adigoo la imaanahaya inaad salaada qirtid ayaa la doonayaa, oo salaada aad tukatid oo aad oogtid. wa tu'tiya azakaata sakada inaad bixisid waxaa weeye aqniyada ayaa laga qaadayaa, boqorada ayaa lagu celinayaa iyo masaakiinta. qadar macluuma oo la yaqaan ayay tiro kastaa leedahay oo markaasi saka ay ka waajibto, waxaa weeye mid nool iyo mid aan noolaynba, xoolaha kooda nool iyo kooda waxaa weeye yacnii dukaamada iyo lacagta ku jira. wa tu'tiya zakaa sakada inaad bixisid, wa tasawmu ramadaana ramadaankana inaad soontid bishaa ramadaan ee sanadkii hal mar imaanaysa ee meel la ammaanay ee waxaa weeye ummadda lagu waajibiyey inaad soontid. wataxajul beyt beytka allana inaad xajisid, shuruud buu leeyahoo in istadacta haddii aad awoodid ilayhi beytkaas sabiilan waddo aad u martina aad heshid, markaasaad xajinaysaa. inaad maal haysatid waxaa weeye wax ku filan caruurahaagii, xaasaskaagii, waalidiintaadii iyo fuudilaad adiga waxaa weeye kugu filan xajka intaad u sii socotid iyo inta aad joogtid iyo inta aad ka soo noqonaysid. shuruudahaas iyo kuwo kale ayuu leeyahay markaas. inistadacta qofkii awooda ilayhi beytka sabiilan wadda uu u marana hela, jid uu u mara hela. qaala wuxuu yidhi saa'ilkii sadaqta run baad sheegtay. qaala wuxuu yidhi cumar binu khadaab facajibnaa wuuna cajabgeliyey lahu ninka saa'ilkaa, yas'aluhu nabiga wuu su'aalahayaa kal jaahili sida inuu shaygii jaahil ka yahay oo kale, wa yusadiquhu nabiga wuu u rumaynahayaa calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye kal caalimi sida shaygii caalim inuu ku yahoo kale. qaala wuxuu yidhi saa'ilkii fa akhbirnii ii sheeg iiga waran iiga qabar canil iimaani iimaankana iiga qabar. qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam an tu'mina billaahi ilaahay inaad rumaysid subxaanahu wa tacaalaa, sifo kastoo xun ilaahay inuu ka nasahan yahay inaad ka huftid alla subxaanahu wa tacaalaa, sifo kastaoo ilaahay khaaliqa ahaa laaqi u ahoo waxaa weeye ilaahay u cuntamana ilaahay inaad ku tilmaantid. an tu'mina inaad rumaysid
bilaahi alle ayaa ka mida iimaankii, wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahayna inaad rumaysid inaysan cadad iyo tiro lahayn oo tiradooda aan la garanayn. waxaa weeye inaysan wax cunin, wax cabin, dambaabin, isdhalin, gabar lahayn, wiil lahayn, aabba lahayn, hooyo lahayn iyo sifooyin kale. markaas malaa'igtaasoo 10 in la bartaa ay waajib tahay. haddana 10kaas waxaa ka mida jibriil, mikaa'iil, casraafiil, israafiil, munkar iyo nakiir, raqiib iyo catiid, maalig iyo ridwaan. 10kaa in la bartaa waa waajib. wa kutubihi baa ka mida ilaahay kutubtiisa in la rumeeyo ayaa iimaankii ka mida. kutubta ilaahay waa 104 baa la yidhaahdaa. hadda waxaa weeye 100kaas khayrkay lahaayeen 4tay ku jiraan: furqaan, tawraad, injiil iyo zabuur. zabuur waxaa lagu soo dejiyey nebi daa'uud calayhi salaatu wasalaam. injiilna waxaa lagu soo dejiyey nebi ciise calayhi salaatu wasalaam. tawraad waxaa lagu soo dejiyey nebi muuse calayhi salaatu wasalaam. furqaanna waxaa lagu soo dejiyey nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam. kutubtaa inaad rumaysid munazal inay yihiin, kalaamkii ilaahay inay yihiin, azali inay yihiin inaad rumaysay. wa rusulihi ilaahay rusushiisa inaad rumaysid ayaa iimaankii ka mida. rususha alla subxaana wa tacaala inaad rumaysid 313 rusul ilaa 314 ama 315 rususha ilaahay subxaana wa tacaala inaad rumaysid ayaa ka mida. markaas iimaankii 25 ka mida ee kitaabkiina qur-aanka ee furqaan lagu sheegay heedan inaad baratid waajib weeye. nebi aadam ilaa nebi ciise ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. wa bilyowmil aakhiri yowmilqiyaamihii in la rumeeyo ayaa iimaankii ka mida. maalinta qiyaamada, xashriga inaad rumaysid, xisaabta inaad rumaysid, jannada inaad rumaysid, naarta inaad rumaysid. waxaa weeye ciriiriga iyo dhibaatada iyo shallaytada iyo xasriga jira meeshaas inaad rumaysid oo ilaahay subxaana wa tacaala aad ka magan gashid ayaa la doonayaa. waxay socotaa baa la yidhi qiyaamadu 50,000 oo sano, oo waxaa weeye haddii ilaahay kuu roon yahay qalaa'iqda waxaa weeye xisaabtooda iyo ay soconayso iyo waxaa weeye fasligooda. marka maalinta qiyaamada inaad rumaysid ee yowmul aakhirada magacaan badan bay iska leedahay: yowmul aakhira, yowmul khiyaama, yowmu tanaad, yowmul xisaabi, waayahay yowmul xasrati. magacyada noocaasa iyo kuwo kale oo fara badan. wa tu'minu bilqadari qadarta ilaahay inaad rumaysid ayaa iimaankii ka mida. khayrihi kayrkeeda iyo wa sharihi sharteedaba inaad rumaysid ayaa ka mida iimaankii. qadartu waxay leedahay khayr iyo shar ayay iska leedahay. waxaa la abuuray ayaa la yidhi qalqigan ilaahay intuusan abuurin ka hor ayaa la abuuray qadarta. iyo markaas waxaa weeye hadday khayr tahay iyo hadday shar leedahaba markaasaa la abuuray. qaala wuxuu yidhi markaas saa'ilkii, sadaqta run baad sheegtay. qaala wuxuu yidhi saa'ilkii, fa akhbirnii ii sheeg, iiga waram, canil ixsaani ixsaankana wax iiga sheeg. qaala wuxuu yidhi nebigu, an tacbudallaaha ilaahay inaad caabudid ka'annaka adigoo taraahu arkaayo oo kale. ilaahay inaad sidaa u caabudid ayaa ka mida ixsaankii. fa in lam takun adigu taraahu haddaadan ilaahay arkayn oo adiga mid isha ku haya ilaahay aadan ahayn, fa innahu ilaahay yaraaka asagaa ku arkahaya. markaas waxa aad samaynaysid dee ilaahay
wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun ayuu yidhi. ilaahay khabiir buu ku yahay, waa alla magafaa, waa alla waxaa weeye xakiima. ilaahay wuxuu khabiir ku yahay waxa aad samaynaysid markaas ayuu khabiir ku yahay. fa in lam takun haddaadan arkayn adigu taraahu alle haddii aadan arkayn, fa in lam takun haddaadan ahayn taraahu mid arkahaya, fa innahu ilaahay yaraaka asagaa ku arkahaya. qaala wuxuu yidhi saa'ilkii, sadaqta run baa sheegtay. qaala wuxuu yidhi saa'ilkii, fa akhbirnii iiga waran, ii sheeg canisaacati saacadda qiyaamadana bal wax iiga sheeg markaas, goormee ayay dhacaysaa qiyaamadu? qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, mal mas'uulu midka i su'aalahaya oo manisaa'ili kuwa wax su'aala ka mida canhaa qiyaamada i weydiinahaya biaclama aniga ugama cilmi badni aniga. riwaayadaha qaar waxaa soo aroortay adigooba sheeg, yacnii waa taqaantaa qiyaamadu markay dhacayse. mal mas'uulu midka i su'aalahaya canhaa qiyaamada waxaa weeye biaclama ugama cilmi badni min asaa'ili saa'ilkaas ugama cilmi badni aniga. manisaa'ilu riwaayadaha qaar manisaa'ili ayaa riwaayadda hadda ii taalla saas waay. ugama cilmi badni aniga ninka qiyaamaha i weydiinahaya anigu ugama aqoon badni. oo waxaa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, qiyaamada waa la ogeysiiyey haddana waa la hilmaansiiyey. qaala wuxuu yidhi saa'ilkii, fa akhbirnii ii sheeg oo iiga waran haddii aadan ogeyn goortay dhacayso qiyaamadu, can imaaraatihaa waxyaalaha lagu garto wax iiga sheeg. qaala wuxuu yidhi nebigu, an talidal ammatu addoontu markay dhasho rabbatahaa sayidadeeda markay dhasho qiyaamadii ayaa dhacaysa. naagta addoontaa markii ay dhasho nin adduunka u taliya ama bar ka mida u taliya ee madaxweynaha markii ay dhasho, dee qiyaamadu way joogtaa markaas. sayidadeeda markay dhasho, wa an taraa haddii aad aragtid, wa an tara alxufaata xufaaddii markaad aragtid qiyaamadii ayaa dhacaysa. kuwii cagaha caddaa ee xufaadda ahaa, alcuraata ee qaaqaawanaa ee waxba dhara aan qabin, alcaalata ee cayrta ahaa, ricaa'a ashaa'i ariga raaci jiray ee meelaha baadiyaha ariga ku raaci jiray. markii aad aragtid waayahay, yatadaawaluuna ayagoo isku faanfaanahaya fil bunyaani dabaqyo, qiyaamadii ayaa dhacaysa. suma bacdigeed indalaqa wuu tegay, ninkii wuu iska baxay markaas. arrimaha markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay, wa an taraa markii aad aragtid buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam, alxufaata kuwii xufaadda ahaa ee cagaha caddaa, alcaalata ee cayrta ahaa ee waxba aan haysan, alcuraata dheh ee cayrta ahaa oo aan waxba haysan, waayahay alcaalata ee cayrta ahaa. wa an taraa markii aad aragtid buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, alxufaata kuwii qaaqaawanaa, alcuraata ee cayrta ahaa, alcaalata ee cagaha caddaa ee kabahaya waxba aan qabin, ricaa'a ashaa'i ariga raaci jiroo baadiyaha ariga ku raaci jiray, yatadaawaluuna ayagoo isugu faanfaanahaya fil bunyaani dabaqyo, sida hadda maantaba joogta ee indhaha lagu wada hayo. dadkii nuucaas ahaa ayaa magaalooyinkii soo galay oo dabaqyo ka taagay markaas. qaala wuxuu yidhi markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam, qaala wuxuu yidhi cumar dheh, sumandalaqa ninkii wuu iska tegay.
falabisa wuu nagaada nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshii ayuu sii jooga maliyan saacado. dhowr saac ayuu meeshii nebigu sii jooga ama qadar ayuu sii jooga meeshii macluumahoo la garanahayo ama markaasba aan la garanayn, daqiiqada aan la ogeyn inta ay yihiin. suma qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, yaa cumarow atadrii ma garanayse, ma taqaanta, ma garanaysaa mani saa'ilu ninka waxaa weeye wax i su'aalahaya ee wax i weydiinahayay ma taqaante? qultu waxaan idhi allaahu wa rasuuluhu aclam. cidaabta saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam fiiri cidaabtooda, shaygii xataa iyagoo garanahaya ayay waxay leeyihiin annaga ma garanayno, shayga kan ma naqaan. allaahu wa rasuuluhu aclam buu leeyahay, ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmi leh, anigu shaygan ma garanahayo. qaala wuxuu yidhi markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam, fa innahu ninkaasi jibriil ayuu ahaa, ataakum wuu idiin yimid, adinkuu idiin yimid, yucallimukum inuu idin baro oo idin tacliimiyo diinukum diintiina inuu idin baro oo idinku tacliimiyo ayuu idinku yimid. markaas ninkaa malaku jibriil ayuu ahaa markaas oo sidaas samaynahaya. rawaahu muslim ayaa wariyey xadiiskaas. imaamu muslim ayaa wariyey, bukhaariguna wuu wariyey, tirmidigu wuu wariyey, oo raqamka muslimka waxaad ka fiirin kartaa kitaabkiisa, wuxuu uga jiraa xadiiska 2216 weeye. tirmidigana wuxuu ku wariyey 2609 ayuu ku wariyey markaas. bukhaarigu wuxuu ku wariyey lambarka 8 ayuu ku wariyey markaas. isaguna waa xadiis weyn markaas ee ka hadlahaya islaamka iyo aasaaskiisa iyo waxa qofka muslimkaa laga doonahayo ayuu ka hadlahayaa. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.